marxalad waxay imanaysa markaa dabinka aan u bixiyo oo ah marxaladda ay yidhaahdaan the aha moment amba eureka amba insight amba illumination magacyadaasoo dhan waa loo yaqaana marka waxa weeye qofkii dabin maxaan ugu magac daray markaa waxay ka dhigantahay marxaladii incubationka intaad ku jirtay iyo diyaar garowga waxay ka dhigantahay inaad dabin xidhantay oo kale neuronskaaga waxay isku diyaariyeen ay diyaar u yihiin inay helaan hadda fikrad amba aragti amba fikrad hal abuur oo muhiima amba wax ka mida wixii aad ku hawlaneed inaad hesho ayay diyaar u tahay dabin baad xidhay marka waa marxaladda ugu waktiga yar had iyo jeer dabin haddaad xidha maxaa dhaca ugaarsigii aad ku samaynaysay markaad samaynayso dee daqiiqad weeyaan shayga markuu soo dhaco markii dabinka uu xidhmaya dhag waa ilbiriqsi weeyaan marka waa dabinkaa xidhan oo kale waa kii mid ka mid a culammadii muslimiinta ibnu jawsi oo kale buug dhan ka qoro la yidhaahdo asayid alkhadir oo aada mata mine hunting oo kale marka mine hunting baad samaynaysaa dabinkii baa kuu xidhan wax kugu soo dhacaya mararka qaar afkaartaas iyadoo badan bay imanaysaa waa inaad markaa qorato oo markaa calaamadsan karta fikradaha kugu soo dhacaya mararka qaarna waxay noqon karaysaa dee halka u dhimatay nuxurkii ugu muhiimsanaa hal abuurkaagu noqon karaya marna maxay noqon karaysaa afkaar qurux badan buuggii aad qoraysay mushkiladii aad xallinaysay afkaar la xidhiidho qurux badan ayaa dabinka kugu soo dhacaysa waa wax ka mida inspiration ilhaamka wax ka mida weeyaan ilaahay subxaana watacaala maskaxda kusoo riday mar haddaad dadaalkii la timid oo diyaar garowda adigu qasama dadka qaar baa laga yaba in marxaladan oo keliya isku hadlayaan oo inta meel iska fadhiistaan wan iyo waxaasaan sugaya waxaan iska sugayaa dee intaan fikrad helayo inta wax iskaga soo dhacayaan markaadu dee nebi matii lagu soo waxyoonayo muhiimaddu waxay tahay waana dadaal iyo juhdi iyo diyaar garow iyo la timaadaa majaalkaagana aad garanayso markaas ayuu dabinkana imanaya saxda waayo imanka dabinka wixii ku soo dhacaya waad garanaysaa iyo meeshaad ugu tala gashay laakiin boqol aragti haddee kugu soo dhacdaan adoo walba suuqa iskaga jiray boqol fikradood oo wanaagsan haddee kugu soo dhacaan oo cishwaayiya oo mid siyaasadeed iyo mid ganacsi iyo mid walba leh dee xaggee la tegi waa boqolaal waxa waayo mushkilad gaaraad ku hawlanta ma jirto marka waa marxaladda dabinka waa halkay u dhimatay waa halka hal abuurku ka dhasho laakiin waa marxalad aad u yar oo labada hore la'aanteed aan dee faa'iido badan keenin